runtii maanta kulankan aanu ku sameynayna xafiiska maayarka ama aanu ku shaacinayna maadaama aanu iska kaashanayna marka horeba socodsiinta dowladda hoose ee Salaxley iyo shirkadda yada leedku ujeedadiisu waxa weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi kulankii aynu ku qabanay banka wuxuu ka hadlay Salaxley leedkeedu laga bilaabo bisha tobnaad kowdeeda in uu yahay 0.59 maanta ayaanu dhaqan gelinay kowdii bisha ayaanu dhaqan gelinay biilashii dadkana waxa loo diray maanta oo bishii tobnaad lacagteedii laga ururinayaa qof kasta oo reer Salaxley ah unitku $1 buu ahaa maanta waxa laga qaadayaa 0.59 aad iyo aad baan maxaan ku leeyahay arrinta ugu dhagnugnaaday waxa suuragal ah inaanu nahay meeshii koobaad ee ku dhawaaqday inay dhaqan gelisay marka laga tago berbera meeshii koobaad ee ku dhawaaqday inay dhaqan gelisay in leerku laga bilaabo kowdii bishii tobnaad laga bilaabo in uu yahay 0.59 halka unit dadweynaha reer Salaxley waxaan ka codsanaynaa in qof kasta wixii aan gurigiisa saacad ku xidhnayn oo saacad ku xidho